soo dhawow muqdisho aad joogtaa waayahan aad joogtay aniguna ku faraxsanahay inaan kusoo horfariisto oo su'aal ku weydiiyo iyo weliba heestii muqdisho marka hore soo dhawow dhawaan kooxda xidigaha geeska oo hore uga tirsaneed inkastoo ugu maqaalada in xidigaha intaan safartood aad jirtay oo fanaanad geesaysay oo magac lahayd haddana gudoomiyaha iyo xidigaha qaarkood waxay sheegeen in adiga oo Yurub geeya ah nimcaan hilaac Xadan Cabdiraxmaan iyo saxaabad kooxda laga ka saaray adiga dareenkaada ka waran iyo arrinkaas soo yeelay wallahi waa su'aal wanaagsan walaalo anigu dareenkayga aad baan u soo dhaweynaya waxaan leeyahay kulay Xadan Cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac iyo Yuusuf Nabi anigu xidigaha dhexdooda fanaaniin kuma lahayn hortoodna fanaaniin baan nahay dibadna waan noqonaynaa iyaguna go'aanka ay soo gaareen gudoomiye Xasan Dhuxul iyo inta kale xubnaha meesha go'aanka ay soo gaareen go'aankooda aad baan u soo dhaweynaya kamid waxaan leeyahay fanaaniinta aad ka saarteen xidigu waxba idin ma noqonayaan shacabka Soomaaliyeed ee fikirka khaldan laga dhaadhicinayna waliba gaar ahaan reer Soomaaliland anigu fanaanad reer Soomaaliland anahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku heestaanahay meel walba afka Soomaaliyeed lagaga hadlana way tagayaan muqdisho kaligeed ah meel walba afka Soomaaliyeed lagaga hadlo way tagayaan xidigana waxaan leeyahay munaafaqada aad shacabka Soomaaliland gelinaysan kidaaya baan leeyahay dabcan xidigaha waxay wataan magacii geeska Afrika adinka waxaa dhigi kara fanaaniintii ugu shidmay oo lagu jeclaa dabcan way ka saareen marka waxaa jirta in idin soo wadaageen mise waxaad maqasheen oo kaliya warbaahinta in ka saareen may waxbana lama soo wadaagin waxna lama soo wargelin laakiin iyagu go'aankii ay waqti xaadirka ay gaareen kaliya ahaantooda un bay ku dhaqaaqeen wallahi afarta fanaan ay ka saareen anigu afar ku ahayna waxaan u malaynayaa in aanay ka xumayn fikirka ay soo jeediyeen oo sidaan ay ugu faraxsan yihiin waana soo dhaweynaya fikirkooda dabcan bulsho Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga inta badan ku hadasha markii ay maqleen in dabcan dareenkooda muujiyay wadaageen baraha bulshada dabcan waa aragtay shacabkaas maxaa leeyahay horta shacab kale maaha oo shacabka reer Muqdisho maaha waxa fikirka khaldan ay ka dhaadhicinayaan laakiin iyaga laftirkooda ay qadiyad bay gelinayaan oo bil aadan wax bay isweydiinayaan Somaliland qof ku midoobay in ay yacni xumaan un ay ka shaqeeyaan ku midoobay ama maqlina baan leeyahay Somaliland meel walba joogan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan Yurubiya dadka qaar waxay dhahaan waa soo raxmada qarniga geeyo hooyo ku bixisay mise fanka ku bixisay may fanku igu baxaynta fanaanada magacaas maanta laakiin waxaa codsiga sikiyay oo kulli niyadeyda wixii ku jiray aan sheegay in fuliyay walaalkii daar cali soo salaamayo heesteeriyada دار على الجوانب لكن دار على الحماها waxaan leeyahay inta fikirka khaldanka aaminsan fikirka khaldan ay ka baxo marba hadii yubiyada heshiiyeen waa wanaagsan taageero Soomaaliya aad iyo aad waa de qofka kulli wuxuu u jeedaa oo rabo in waxa ay meel cadeyn been ka madow waxaa idina kama furfuri kartaan aaminsan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto salaam